waxaan ka rajaynaynaa annaga in koobka iskuullada degmada Balcad aan carafaag ilaa kula soo luweyno maxaa la yiraahdaa hareeri cad oo garas bintow aan xaflad ugu dhigno koobka ayaan rajaynaynaa insha Allah saaxiibada degmada Balcad teamska iskuullada waxaan u sheegaa sanadkan garas bintow oo koobka u socda hal is diyaariyo insha Allah waxaan rajaynaynaa haduu la yiraahdo sidoo u bilowday tartankan inuu noqdo tartan sanad kasta la qabto si maartay loo helo mustaqbalka arday macnaha ciyaartooy matalisa degmada waxaan rajaynaynaa haduu ilaa kana noqdo guush in aan makanino oo dugsiga noqdo dugsiga uu cad dhanka ciyaarta inoo noqdo guushina ugu dambeyn aan helno oo koobkan aan qaadno alxamdulillahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi wa ba'du magacayga maxamed xuseen cabdiraxmaan mastarshiine maamulaha dugsiga hoose dhexe iyo sare ee garas bintow maantay waxaan soo dhaweynaynaa xiriirka kubadda cagta degmada Balcad oo hogaamiyo gudoomiye Kabila iyo teamkiisa ayaa nagu soo booqday iskuulka garas bintow maanta waxa farxad noo ah annagoo joogno tuulooyinka hoostaga degmada Balcad gaar ahaan tuulada garas bintow inaan sanadkan 2023-2024 xiriirka kubadda cagta ee iskuulada aan qayb ka nahay oo aan u diyaar garoobayno oo maantay kormeerkii koobaad ee ciyaartooydeena iyo aragtidooda ay noogu imaadeen gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta degmada Balcad iyo teamkiisa iskuulka nagu soo booqdeen sida arkaysaan maantay waxaan joognaa iskuulkan joognaa waxaan u diyaar garoobaynaa inaan ka qayb galno tartanka iskuulada ee degmada Balcad waan soo dhaweynaynaa shaqada quruxda badan oo ay wadaan gudoomiye Kabila iyo teamkiisa oo tuulo ilaa toonka magaalada degmada Balcad isdhaxgal loogu sameeynayo tiimamka dhalinyarada ah talantigooda iyo awoodahooda ay ku soo bandhigi doonaan waxaan rajaynaynaa hadda waxaan dheelaynaa heer school inaan gaarno maxaa la yiraahdaa Serbi oo aalamiitay degmada ka dambana aan gaarno Zere oo degmada u dheela hadii Ilaahay insha Allah ilaa state ka u dheelno anagoo garas bintow ka bilaawno ugu dambayna insha Allah qaranka u dheelno marka gudoomiye Kabila iyo teamkiisa thank you shaqo fiican haysan Allah idin fududeeyo insha Allah tartanka sanadkan dhacaya waxaan ka rajaynaynaa annaga in koobka iskuullada degmada Balcad aan carafaag ilaa kula soo luweyno maxaa la yiraahdaa hareeri cad oo garas bintow aan xaflad ugu dhigno koobka ayaan rajaynaynaa insha Allah saaxiibada degmada Balcad teamska iskuullada waxaan u sheegaa sanadkan garas bintow oo koobka u socda hal is diyaariyo insha Allah bismillahir rahmanir rahiim alxamdulillahi rabbil aalamiin thumma salatu wassalamu ala rasuulillahi wa ba'd assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh waxaan rabaa halkan inaan ka hadlo marka hore waxaan u mahad celinaa warbaahinta rajo oo sports oo runtii kaalin weyn ka qaadato horumarinta sportiga degmada Balcad magacayga waa Mawlid Ali Slow maamulaha dugsiga Imaam Nawawi Balcad waxaan rabaa inaan maartay aan ka hadlo barnaamijka sportska ee tartanka hadda raba in la bilaabo marka la hadlo iskuulka Imaam Nawawi baryahan wuxuu ku jiray diyaar garow oo ku saabsan ka qaybgalida tartanka iskuulada loo qabanayo degmada Balcad waxaan rabaa inaan u mahad celiyo markii ugu horeyso gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee degmada iyo guddigiisa oo runtii barnaamijkan qodob dhaxaad u ahaa oo ayagana dadaal u galay in barnaamijkan tartanka inuu qabsoomo marka la fiiriyo dhanka dugsiga Imaam Nawawi baryahan waxaan ku jirnay inaan maartay ardayda ka qaybgalaysa ciyaartooyda matalaysa iskuulka inaan tababar siino tababarkaas oo ah mid lagu kala saarayo maartay ardayda ama ciyaartooyda ka qaybgalaysa wareegan loo qabanayo iskuulada degmada Balcad runtii hadda wuxuu marayaa meel aad maartay u fiican maalin kastana ciyaartooyda waxa maartay loo sameeyaa tababar iyadoo maartay laga dhisayo xagga jirka xagga maskaxda iyo wacyigelin labadaba maar intaas oo la isugu daraayo sidoo kale waxa u mahad celinaa guddiga ayaa maartay maxaa la yiraahdaa sportska dugsiga iyo tababarka ama tababaraha koowaad iyo kan labaadba oo runtii xil weyn iska saaray inay maartay ardayda xooga saaraan sidii ay maartay loo soo saari lahaa ciyaartooydii sida rasmiga u matali lahayd
maarta dugsigan Imaam Nawawi Balcad waxaan maarta rajaynaa hadduu la yiraahdo in iskuulada ka qayb galaysa wareegan oo maarta runtii markii ugu horeysay ay tahay degmada Balcad loo qabto tartan ka dhaxaysa iskuulada degmada Balcad waxaan aad u soo dhaweynaa iskuulada ka qayb galayo oo maarta aqbalay oo runtii iskuuladaasna ay ku yaalaan qayb gudaha degmada ku yaalo iyo qayb maarta magaalada maarta tuulooyinkooda maarta ka dhisan waxa dareemaya inay tahay isdhaxgal bulsho maadaama bahda waxbarashada aan nahay mar walbana waxbarashada maarta mar walba waxay ahayd dad xiriir leh laakiin dhanka sportiga in maarta iyadana maarta laga hagaajiyo oo maarta xiriir dhinacaas maarta u bilowdo wax fiican oo qaybta ay ka qaadanayso nabadana qayb weyn ka qaadanayso dhalinyaradana isku baranayaan oo sportiga xaqiisa maarta isdhaxgal u noqonayo runtiina waa wax aad maarta u fiican waxaan rajaynaynaa hadduu la yiraahdo sidoo u bilowday tartankan inuu noqdo tartan sanad kasta la qabto si maarta loo helo mustaqbalka arday macnaha ciyaartooy matalaysa degmada sida ognahay qofka ciyaartooyga ah inta badan waagii dawladda waxa laga xuli jiray oo ka soo bilaaban jirtay iskuulada maarta tartana loo qaban jiray hoos oo ka soo bilaabanay iskuulada loo qaban sameyn jiray ilaa iyo maarta maxaa la yiraahdaa heer qaran marka waxaan rajaynayaa hadduu la yiraahdo in tan ay noqoto in laga helo ciyaartooy ay ka soo baxaan oo degmada matalo gobolka Hirshabelle ahaan matalo qarankana matalo marka dambe marka runtii mar labaad waxaan ku amaanayaa gudoomiyaha iyo gudigiisa oo arintan maarta xooga saaray annagana hadduu la yiraahdo maamulka dugsiga Imaam Nawawi hadaan nahay waan ku garab istaagsannahay oo maarta garab ku siinayna hadduu la yiraahdo wax walba oo noo laga baahan yahay maarta diyaar u nahay waxaan rajaynaynaa annaga xaggeena si nadiifa oo maarta inuu maarta ciyaartooyda ay maarta uga qayb galaan waxaan rajaynaynaa ciyaartan inay noqoto ciyaar oo runtii xiiso leh oo maarta degmada Balcad maarta dad badan ay ka soo qayb galaan maadaama tartankan uu yahay dad tartan oo maarta bilow ah waxaan rajaynayaa sanadkan iskuulada aan ka soo qayb galin in sanadka dambe ayagana maarta fursad u helaan inay ka soo qayb galaan marka waxaan rajaynayaa inuu nagu dhamaado si wanaagsan mar labaad waxaan dhamaan u rajaynayaa ciyaartooyda iskuulada dhan ee ka qayb galaya ciyaarta inay maartay si wanaagsan ciyaarta maartay u ilaaliyaan akhlaaqda maartay ciyaarta garsoorka in la tixgeliyo in waqtiga la dhowro marka taasna waa maartay si odotinimo u soo jeedinaa dawladda maadaama aan qof sports hore aan ahaa marka waxaan rajaynayaa inuu maartay si wanaagsan ay noogu dhamaan doonto dawladda yiraahdo mar labaad waxaan u mahad celinaa gudiga iyo gudoomiyaha sidoo kale Rajo Sports oo runtii magaaladan Balcad ka dhisan oo qayb weyn ka qaadata maarta horumarinta sportska waa la socdaa waxaan rajaynayaa iyagana maarta hawshooda runtii degmada u hayaan in la laabaan hadduu la yiraahdo oo qayb weyn ka qaataan degmadeena waxaa lagu yaqaanay in sportiga maarta taariikh ay ku leedahay oo degmada Balcad waxay kamid ahayd degmooyinka leh ee tirada yar ee leh Serie A leh oo xilligii dawladda marka waxaan rajaynayaa inay soo noqoto intaasna maarta insha Allah waa maarta dardaaran wixii kale oo dheeraad kulli insha Allah waa suumaan doonaa bil caalamiin ثم صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ما بعد ورهين وحمد الله سبحانه وتعالى نقدر قد مديسة مركز حكتا وحاد وماسن قدونك iyo guud ahaan xiriirka kala duwan ee degmada Balcad ee soo agaasimay tartankan qiimaha badan oo u dhaxay iskuulaadka degmada Balcad waa muddo badan oo sugeynay inay ciyaartaan u dhacdo iskuulaadka u dhaxayso waxayna qayb qaadanaysaa horumarka iyo isdhexgalka iyo inay waxbarashada kobac samayso dhalinyarada gaar ahaan ardaydan ay helaan nashaadaad kala duwan waayo ciyaartu waxay kamid tahay waxay jirka siisaa caafimaad iyo jirka inuu koriimo sameeyo marka taas waxa ku maasan gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta degmada Balcad iyo guud ahaan xiriirka kala duwan ee degmada ka dhisan gaar ahaan dugsiga Sunshine oo sanadkan nasiib u yeeshay inuu ka qayb galo tartan ciyaareedkaas u dhaxeeya iskuulada degmada Balcad aad u soo dhaweynayna waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay kana noqdo guush in aan makanino oo dugsiga noqdo dugsiga u cadcad dhanka ciyaarta inuu noqdo guushana ugu dambeyn aan helno oo koobkan aan qaadno
waayo wax walba dadaal waaye annaga waa diyaar garownay diyaargarow adagaa sameynay maalmahan ciyaartooyda ama xulka dugsiga hoose dhexe sare ee Sunshine Balcad waxa u socday waxay sameynayaan almiinta fara badan ay sameeyeen marka juhdigoodana wax badan ka soo baxay wax ka soo baxan waxaan rajaynaynaa inay kaalin isu hooyaan dugsiga Sunshine guud ahaan degmada Balcadna ee isu hooyaan inagana guul waayo hadda Sunshine koob qaado degmada Balcad ama iskuulaadka dhan qaaday ee la mid tahay inkastoo calafka yahay kubadda calaf iska tahay la sheekan iskuulkii qaadaya laakiin rajada ugu wanaagsan aan qabno xitaa inaan koobka qaadno marka insha Allah taala guul ayaan rajaynaynaa ciyaartan waxaan rajaynayaa si wanaagsan oo si habsami ah inay ku bilaabato si habsami ah oo nabad ah inay ugu soo dhamaato duulaakan aan noqdo insha Allah taala waana maasantiin